madaxweyne daacada oo dalka u istaagay inuu khawaarijta ku xoreeyo Dr. Xasan Sheikh Maxamed xafidahullah xasan Sheikh waa shibah wahaabi ni wahaabi oo caqadiisu ay wahaabi ay tahay oo codkiiso duwan aan hayno waliba macal mahdi waa ogtihiin shabaabka ka yimid ma sanad waa ogtiin waa shabaab ninka la yiraahdo Mugaab waa shabaab والله بالله واشهد إنا لله وإنا إليه راجعون شيخ سومو maxaa hadalkaas ka keenay muuqaalkan kuula wadaagaya hayga degdeg السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كما قارئ أدبا هذه السلام يا ملك سودوني أكيد جوكتان ولكن عبد الله مع الحسين ورجينا يا أنه النبض يعرف ما قبلنا ربنا ومركل الدب إنه كل سيء وبرامج كنا ما أنت قيبتي سي لبعض نبينا عليه الصلاة والسلام أقول صلنا أنت ربنا الله كدر القاضي أنت يسوق توصيتان الله وبركيه صومالنا دحد هذا برعض الله مريو الله لا تنادي سكو حار ورأمين ده بلتها والله ليال سيده الرعى برنامج كي جاب كوسو أرتين نكان ضيقة وتقانان شيخ سومو بالير هذا وحن هري إذن كوجو شاقي مرور بابا إذن شاقة إذن إن بدنا إذن كبدنا هذا أكتين سياسة وحيلات هاي دنا جوكتها إيه ملها صاحب تنو جوكتها أنت أودع منه شيخ سومو وحا أكتين شيخ محمد عبد أمل إنه يري مقالة ما إيمان كرا إنتو حرتي سي بحصدي قرية لقاتلي ولا الدلاية هدو هذا استاديوم كا ليرادو إنجنير يريسو أما استاديو كونس هدو إمادو ولا الدلاية بل وركا آدو ديسو معناها وحان أقول لي سياسة إنه دانا جوكتا ألاده oo aysan lahayn saaxiibtinimo joogto ah waxa ku cadeenayo ninka odayga ah Sheekh Ali Wajiis meel ku sheeg Muqdisho warar baa ka dhacay waa la islaayay dad baa la dilay dad baa 12 kun dad ka badan baa baraka caleeyay intaasoo qofood baa dhimatay intaasoo dhaawacyo isbitaalada taal intaasoo hanti ah baa burburtay intaasoo guryo baa la dumiyay Sheekh Ali Wajiis meel ku sheeg Sheekh Bashiir Ahmed Salaad meel ku sheeg ما شكتا هذا شكتا بالليل وذاك سياسته إن أيسن أكل الدوانين هذا علمتها إيه هذا سياسي قولي ستة طيبة نمن كاسا ما أنت عدينكم وفلان نمن كان ونمن كي دستور كان حسن شيخ محمود وبدلي حتى أنت حرمت البرلمان كده احتاجين جمعها كتاجي أو أيجي جمعها تاجو يري رالي بان كنا أو مركي اللي ويديو ما حد أصلا مثلا أديكم البرلمان ككميتي مركي اللي يري وحيدا أنا قد دين تورديها كنا هاي dad kaana ku metela diinta yaa u dirsaday yay metelaan yaa caleema saartay yaa yiri meesha noo aada nin walbaaba tiisa wado bil haqiiqa Sheikh Ali Wajiis sidoo muhaafid u ahaa iyo Sheikh Bashiir Ahmed Salaadba say muhaafidin u ahaayeen oo Xasan Sheikh Maxamuud hadalkiisa ba xadiis ooga soo qaadayeen qabuurta in la faago dawladda xaq bay u leedahay guriyaha in la dumiyo shib qayli buuq dadkii cabaad saana lagu sameeyay shib garaangarta say u socotay Xasan Sheikh Maxamuud hal mar intuu kala wareegay oo 300 digriisa u wareegay ila nimankan already record buu ka hayaa cajalad buu ka diyaarsaday dawladda inay xaq u leedahay wax walba inay sameyn karto cajalada buu ka haystaa Soomaa goof Sheikh Ali Wajiis reerkiis ay lahaayeen oo hal mar ku soo kala wareegay Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Ali Wajiis iyo Sheikh Bashiir Ahmed Salaad markaas waagu ku bariyay isla markiiba Ali Wajiis شرجر عيد بقبته إذا عاد سجير مايا سهواي قف كأنا قاله قرن جاسن لهن أو كاسن لهن أو أنت أصلا صناد بأنا قالهن قف لي قانواي دول أنا قال لا نهواي عيدو مسوا قلي كرتو وحد دلدلي ولا سعتين دتكي مساكين تهاي وذو أيني المهي الرأي سكول كم مقنع مركي سكول كإم عذن جرجود ما يشوف كوي عليه بجرن وعينا شوقي يجاك ومدهن إنه لا هل إسكداي وحيري دولة وقص عنتها حق بين أولاد واحد وأنت نسمعه تيسي مركي لو سوى جسدينا إلى أن عجلت بالله هي والله ضبطية تيسي مركي لو سوى جسدينا ساعات كم سوى رجنا إذا عضو الله إسلا الجمعة دي يكون حكتي شيخ بشير أحمد صلاة مساعدك وقد بك جسوا جيلي تطبع عبنايو قيلان سو جارسو دولة وحي حق ولاد وين كهذا شاء دتك وين لو جوابا دتك وين سنين ليلا هذا ومركي صاحبك اللي خجرفتيا أنت كورسي شيخ بشير أحمد صلاة magaalada Muqdisho joogay gobolka Banaadir meel uga bixin inta hooyooyinku sida u wada cabaadayeen sida u oynayeen habaartamayeen meel kasta laga soo habaariyay masaajidda la duminayay mawlacyo la duminayay inta la qaylinayay Sheikh Bashiir Ahmed Salaad kelmad kama u saddex maanta markii Ali Wajiis la taabtayna qodbadii ugu horeeyay masaajidka asaga ku soo qaatay qodbada taamarka maxay ku tusinaysaa wala culimo ku dar oo siyaasaddu inay dana joogto leedahay saaxiibtinimo joogto aysan lahayn
waxaan u soo laabanayaa sheekh Somow marka sheekh Somow markii hore muxaafid buu ahaa xasan sheekh maxamuud xaqiisa lagama soo marin waa nin muxaafid ah dal xoreeyo waaye sidan waaye waa garab taaganahay shacabkiisa jecel intee ka dhacday saano noqday codkiisa dhageyso isaga isku mar adduunyada ilaahay sanadkan markhaati cid kale lama raadiyaba adaa markhaati isku furaaybo dhageyso sheekh Somow madaxweyne daacada oo dalka u istaagay inuu khawaarijta ku xoreeyo Dr. Xasan Sheikh Maxamuud xafidahullah iyo ra'iisul wasaare fulinta oo u dhiibto oo ku waafaqsan oo u taagan hal bil is khilaafan aanu haysanaa iyo golo barlamaan iyo golo wasiir oo diyaarsan garabkooda ma ku naqanaynaa dalka inay cadow ka xoreyno وزارة الشيخ هايسنا مدحونا الشيخ هايسنا قول وزير علماء هايسنا هروس صعد معيقينا نهي حولها بحنينا حوقها بحنينا إنا لله وإنا إليه راجعون والله وأنا شاهد والله حسن الشيخ محمود علماء يهدهن سياسيين يهدهن دلنيرو يهدهن هويوين يهدهن قف وسن عد كدوبا وسن عد كيسا مالغن مجرته ننقر كيس لو حيريو adigana soo qoyso meel sheekh cali wajiis oo la taliyay madaxweynaha gaarka ah goofkiisa la soo weystay sheekh Somow intee joogtaa wallahi sheekh Somow ruwaayad caadi waay halkaas markay xaaladdu marayso oo rikoorkaas laga qabtay oo cajaladaas meel laga dhigtay shalay baa isagana la soo salaamay marka shalay baa la yiri gow sheekh Somow wixii gidaar meesha ku dhisnaa iyo darbi ayaa guriga gudaha loogu dumiyay marka horena cajalad baa looga hayso ma laga diyaarsaday maantana tan noo sheega marka anaga macal mahdi waa ogtihiin shabaabka ka yimid ma salaad waa ogtiin waa shabaab ninka la yiraahdo Mugaab waa shabaab xasan sheekh waa shabaab wahabi ni ah wahabi oo aqdiiso ay wahabi ay tahay oo codkiisa duwan aan hayno waliba asigoo amaanaya maxamed cabdiwahaab asigoo amaanaya aan hayno wixiisa dhanba aqeedadaas ay ku dhisan yihiin dalka Soomaaliya khatar uu ku jiray haddana khatar uu ku jiraa adiga la isku marqaatay fur sheekh Somow cid kale lagu raadin maayo hebel markuu saas dhahay ma maqlaysay ma jirtaba adaa ismaqlaayay adaa iskeena waa sheekada adaa iskeena waa ma garatay marka xasan sheekh maxamuud ama ehel u noqo ama saaxiib la noqo ama siyaasad la wadaag ama danguud la wadaag ama mid gaar la wadaag xasan sheekh maxamuud waa xasan sheekh maxamuud go'aankiisa waa dhanyahay waraa 30 milyan haysto nin ay isaga dhawaayeen ma jirto maantana salaanta iskama qaadaan sambalolsho nin ay isaga dhawaayeen ma jirto maanta salaanta iskama qaadaan allahumma ista'aan cabdikariin guleed salaanta iskama qaadaan maanta nin ay isaga dhawaayeen ma jiro waa maya sheekh shariif iyo xasan cali khayri iyo ragga isla soo wada jabhadeen oo farmaajo dhinac ay ka wada mareen axmed madoobi asaga Saciid Cabdullaahi Dani aawe ragga isla soo jabhadeen cid maanta ay salaanta iska qaadaan ma jirto dadkii isla soo jabhadeen maanta waxa kala jooga waa maha salaad ninka waa nin iska aamusan iska degan siyaasadiisa lama fahmo ninka maha salaada bay maanta isku soo hareen oo dhowr mar xataa ayaga laftirkooda qolal isugu geeyo arrimo badan laga hadlo marka waxaan kuu sheegayaa oo ku tusinayaa siyaasiyiinta kale kaba soo tagba heer maanta culimadii waxay marayaan before iyo after laga keeno oo dhanka dowladda ku saabsan nin kasta oo aad aragto inuu madaxweyne u sacabatumayo oo daba ordayo oo boorsada u wado oo xaqan kaga akhrinayo oo u fadwoonayo ultimo waxaad arkaysaa asagoo cakaaro wadada cakaaro dhex taagan arkay ugu dambeyntii halkaas soo istaaga xasan sheekh maxamuud ama u fadwo ama ha u fadwoonin seeftiisa banaanka taala xilka ma laga ridayaa iyo muxuu ugu darsaday iyo 4 sano kadib uu iska degay iyo anada case waay Cabdullaahi waxba laga weydiinaya taas laakiin xasan waa xasan go'aankiisana waa cadiya marka mar ay ahaataba marka seeftu waa ku soo qabanay mar ay ahaataba salaantiisu way ku soo gaaraysaa marka salaantu haba ku soo gaartay nin qaarkiisa loo xiray oo adigana soo qoysadii hadda aan sheegay waaye hadal yuusan ka tagin marka horeba hadal yuusan ka tagin xasan waasaan oo waa badboodo oo wadanku saan yeelayo intuu kan yeelayo marka horeba yaan laga arkin war xasan ka waran wallahi madaxweyne Soomaaliyeed waa kulay waxba kama warqabo sheekadooda halka aysan dhaafin laakiin maalintaad ammaan kala dul dhacdo ama adigu ammaan ama habaartan ama u buraanbur ama durbaan ka daba qaado xasan waa uu xasan salaantiisu ku soo gaaray marka intaanan cod laga duubin oo aan video meel laga dhigan waxa ku fiican hadii xasan wax laga weydiiyo
inaad tiraahdo waa madaxweyne Soomaaliyeed shartiisana Allah na mootiyo khayrkiisana Allah na soo aadiyo bas maalinta durbaan ka daba qaadato Sheekh Ali Wajiis halku ku dambeeyay waa ku dambeynaysaa Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo baarlamaanka dhex fadhiyaday oo gacmaha labada gacmood bay taagayaan oo leeyihiin waa ansax dastuurka labadii maalmood u dambeysay Muqdisho saas la isugu leeyay lagu hordamayay duud ayagoo dhahay maartay oo kelmad ka soo hadlay maartay waa ma jirto dhamaantood codad baa laga wadahay Sheekh Soobo baa ku soo haray waka Maxamed Cabdi Wahab asagoo amaanayo Maxamed Cabdi Wahab asagoo amaanayo asaga halkaas uga dhigtay amaanta Maxamed Cabdi Wahab ma ahana wax kala muqaysa Xasan Sheekh Maxamuud waa maya ma salaad waa sidan waa kan waa inta waa markii horena asaga amaanay marka walaalow adegdegin xasan hadii wax laga weydiiyo shirtiisa Allah na mootiyo khayrkiisa Allah na waafajiyo intaas la ka sheekada hadii kala salaanta waa kugu soo socotaa saca gowrac weeshana ku qoos qaadato way war aad baa umeysantiin muuqaalkaas aan la ishaatay ayaan doonayaa inaan idin la wadaago intaan muuqaalada xiga isugu soo laaban doono nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh